هذا حسن الشيخ caaw waxaan leeyahay hambalyo xasan sheekh maxamuud waa markii labaad uu soo laabtay caawa waa haween farxad leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan soo xusuustay 1960 markaan xorriyadda qaadanay maxaa yeelay Soomaalidu maanta way isku furantay dadkii way isku faraxsan yihiin wayna isku duuban yihiin marka waxaan leeyahay hal is cafiyo raggii soo abaabulay guddigii soo abaabulay u horeeyo Prime Minister Roble iyo Dhaban Cad iyo Gaagaab waxaan leeyahay iyo dhammaan baarlamaanka oo dhan si sharaf leh inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay ku dhamaato si sharaf iyo wanaag ah halkaasna waxaan leeyahay hambalyo xasan sheekh oo ku soo dhaweynaynaa waana kula shaqaynaynaa wadankana guul ayaan leenahay محاول فرق الصاب مدحوين فرماجو الله كلمة عم عبد الله فرماجو وحنا ليهاي بس هرقصي شرف لكم وريجي ودن كان شعبي الصومالي إنه عاد كعد صرت عفيس كعد سوق وحد دباتي جارين وحد ديارنا كحيرتي من الجبلين يا أودي دحقودي وحد دبات سميس شعبي الصومالي وحنا ليهاي عفيس ويديسو هذه عاد بقول حسنتها وليس أساسي كلنا أقولي على المغرب بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtii caaway waxaan leenahay hambalyo presidente xasan sheekh maxamuud aad iyo aad baan u faraxsanahay caaway aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa ciriiri baa dalku ku jiray dalku dowlad la'aan buu ahaa caawa rajadii ugu weynayd ee farxadda Soomaaliya meel walba laga dabaaldegayaa dabaaldegaas baan waxaan rabnaa dadkii soo gaarsiiyay oo ka soo shaqeeyay inaan aad ugu hambalyayno oo Prime Ministerku uu hogaaminayay uguna horeeyo Roble qoraalaha ka dhigo ninkii lagu wareejiyay gudoomiyaha ku meel gaarka ah oo badbaadiyay ambassador Cabdisalaam Dhaban Cad Xaaji Ahmed Liibaan waxay la tahay taariikhda Soomaaliya ilaahay markuu xildhibaanka ka dhigahayay waxay sabab u ahayd inay Soomaaliya badbaado maantana qayrka iyo rayska iyo barwaaqada ay degtay baad horseed u ahayd waxaan rabaa halkaan inaan aad iyo aad uga hambalyeeyo labada maamul goboleed Abdullahi Saciid Dani iyo Axmed Madoobe oo runtii u dhabar adeegay inaan wadada laga leexin oo aan dadka Soomaaliyeed qoryo la isku dhiibin oo aysan burburin dawladda Soomaaliya balse dadaalkoodii maanta wuxuu dhalay si toos ah in Soomaaliya gacmaha isku qabsato waxaana soo dhawow madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalku cadaalad buu ka sugayaa dalka qodxa badan baa daadsan waxa maqan oo aan rabaa halkaan inaan uga faa'iideysto 5,000 oo wiil oo 10,000 oo hooyo iyo aabe ay sugahayaan oo ku maqan gacanta iyo amarka iyo saxiixa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan u malaynayaa waxyaalaha aad tiri dib la iskugu noqon mahayo taasi inaysan ku jirin waa run wixii siyaasadda ahayd oo lugooyaha ahayd oo adinka ina dhex maray adigu waad cafiday laakiin xaqa ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo ay ka mid tahay kuwa caaqira aaday iyo kuwa aan nolol iyo geeri meelay jiraan la arag عفس مقالا وإن لهلا 5,000 oo wiil waan dhowrayna anagu halkaan aan joognaa dacwadeedana waan ku jirnaa tilaabadeedana waa qaadaynaa laakiin dawladii hoggaanka u noqon lahayd ilaahay baa adiga madax kaaga dhigay madaxweyne aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Soomaaliyeed weeye madaxweyne Soomaaliyeed oo mas'uul ah buu ahaa waxaan leenahay madaxweyne ambabaxaaga waxba kama qabno joogitaankaagiina si kasta oo dalka u qaribaysay waa loo dhabar adeegay oo waxa la diiday xabad baa la diiday dagaal baa la diiday wax allaale iyo wixii sharcigu ahaana waa burburisay ummadda Soomaaliyeed maanta waxay kaaga fadhidaa wixii dhintana waa dhinteena cafis inaad ka weydiiso waxa nool oo aad gaalada u dhiibtana
dib inaad u soo celiso oo aad meel ku sheegto oo xil wareejinta aad ku dadho tiraada dadkeena waak sidaasay ku maqan yihiin oo aad caddayso laakiin inaad inta buug wareejiso iska tagto iyadoo intaasoo kuna ay kugu maqan tahay caqliga bini'aadanku yeeli maayo aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa soo dhowaada waa noo farxad waa noo dabaaldeg adeer aad iyo aad badanna u mahadsantahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay fariintii aa u fartay aad u sheegtay waxaan leenahay farmaajow adaa lagaa sugayaa اوكي waxaan ku soo dhaweynayaa nin Soomaali Ahmed oo aad iyo aad u faraxsan oo u hambalyeynaya madaxweyne Xasan Sheekh kalmateen waxaan u hambalyeynaya madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna ku garab waxaan doonayaa in maaragtay wadanka uu gaaro hawshu ay degto السلام عليكم. أيوة والله هذا مقع الشيء يا لما كلمة حسن الشيخ محل سلوغن كيسو الصومالي اسجعل الصومالي وينو سياسة هو الصومالي اسود الجعل إلا كل يحوس إنه صومالي كشف إنه صومالي سكان مركا وحن أول جينا لمارك شغل مسؤولية مارك أول وقت مارك إنه لا يوفي جايو إننا waxaan u mas'uul maaragtay inaanu taageero isbeddelka dadka guushiisa isbeddel lahaana ayaan sugayay waana la helay waana faraxsan yahay farmaajo iyo gurubadii dani iyo dadkii tartamana waxaan leenahay waa dagaasheen isku daydeen dad wada hiba weyd baa yeeleen oo culus laakiin nin qofun baa ilaahay u qoray hadda xasan sheekh oo qoray halala shaqeeyo xasan sheekh waddanka hala dejiyo siyaasadda waa إن شاء الله إلى يكون الدولة المسؤولية قفكي صوماليا ما أنت مارتي كبحي عادي دوما سيين ولي الشعب كما يحملنا وحلينا حي تضبطنا يا سلام يا والله القصر هذا مقع الشيء بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد الله أبشر علي عاوة أوف من تغنيدا نقفضي مارتي سياسة دساس مقدنين جري لكن last 5 years باكل ودن كان كده عيسي أيها أولسو جيسي أبوري هلايا حنبلي هلايا حسن محمود عادي أبها صوماليا خيرا كونتي هذا دوما سيين ولي الشعب كما يحملنا فرماج الشعب مضم بوقتي حسن الشيخ محل كلمة كسر ومقرافه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تناول الله waxaa ilaahay mahadiisa caawa ku faraxsanahay muddo dheer 5 sano iyo bar kadib dalka wixii dhibaato iyo qalqal iyo wax walba jiray siyaasadda waxa waaye saaxiib gaarab malaha way isbedeshaa alxamdulillah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya 5 sano iyo bar ka hor ku wareejiyay madaxweynaha hadda maanta inuu dib ugu celiso wareejiyo cid ka mudneed ma jiro xasan sheekh maxamuud aga darajartii codka uu ku guuleystay ee sida sharafta leh iyo qiimaha leh oo uu codkiisa u dhiibtay waxa uuna ku baaqay madaxweynaha waa dhageysanaysa waa in la raacaa dadkii u daba socon jiray fidna iyo problem iyo qayl hadda la kala harayaa wax argoosh loo dhaw ma jiro wax dib loo raacayo ma jiro sheekooyinkii la alifay oo dhan wixii oo dhan ay baa cunay hadda wixii ka dambeeyay horumar barwaaqo
dalku hore u socdo Soomaaliya oo nabad ah oo heshiis Soomaaliya oo heshiis ah dunidana heshiis leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kelmadda farmaajo xala shaqo badan buu qabtay waa dadaalay isagana oday Soomaaliyeed weeye wixii uu qalbayno madaxweynaha xasan sheekh waa saxaya isagana kelmad oday Soomaaliyeed runtii waa run waa si hore u sheegay waxaan ku yiri madaxweynaha asaga oo markii shalay bar ka hor halkaan loogu wareejiyay labada gacmo laga qabtay gar loo qaaday runtii aad buu shaqo u qabtay dalka horumar ayuu gaarsiiyay waxana waa qor isku dhiib xasan sheekhna hawshan waa ninkii soo waday haddii ninkeeda dhameystiro hore u idin yiri waa dhageysan wayseen laakiin hadda haddii jaanis la siiyo waxaan filayaa insha Allah inuu qodiyadii uu dhameystiri doono Soomaaliya oo heshiis ah dunidana heshiis leh wassalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan leenahay madaxweyne xasan sheekh shaqo badan buu qabanayaa homework badan baa u yaala waxaan leenahay wax walba adaa saxaya uu farmaajo ku qaldamay ama dowladdu ku qaldamtay waan ku salaamaynaa waxaan ku leenahay xasan sheekh oo guuriyo ميكروفونك waxaan ku soo dhaweynaya carab baan ku soo dhaweynaya magaciisa saddexana idinka isaga inii sheegaya wixii ka dhacay meeshaas soo dhaw laba kalmadood bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaha carab cali muumin tooxow ku nool magaalada London xaafadda galbeedka Britain Wembley waxaan rabaa oo kaliya maantay waxaan leeyahay doorashadii dhacday qofba aragtidiisu uu kaliyahay aniga hadda waxaan aragtidaydu tahay in dalka Soomaaliya uu god ku dhacay waayo rajadii aan kala helnay inay dib u noqoto waxa ka noqon Ilaahay baa og laakiin hadda ififaalaha aan u arko inay dalku meeshii la rabay inuu aaday xildhibaanadu inay la daba mareen sidii dalka iyo dadweynuhu loo rabayba inay xildhibaanadu seegeen aan aragtidayda ku arkaa balse waxba isbedeli karo hadeynta Ilaahay baa la ninka ku guuleystay dalka waa nin hore u soo xukumay oo muddo taqaano balse hadeynta Ilaahay baa le haddii uu wax saxana waa soo dhaweynaya haddii uu hadda wax qaldana hore sidiisa hore ahaadana waxa weeyna hadde mucaarad iyo muxaafid weligeed uu jira mucaaradkayga noqonaya haddii uu si fiican wax u dhigana muxaafid baa noqonaya hadda moor dhacayo laakiin ninka la yiraahdo Bill Clinton ayaa xilka markuu wareejinayay Bush ku wareejinaya waxa la yiri war maxaad kula dardaarmaysaa madaxweynaha xilka kala wareega markaasoo yiri dalku amni iyo dhaqaale wax dhan kasta uu ka dheelitiran yahay meeshuu hadda joogay uusan dib uga noqon oo yiri Bush wax ku dari maayo hadda madaxweynaha xilka la wareegayo Xasan Sheekh Maxamuud waxa leeyahay meesha dalku joogay uusan dib uga noqon inuu hore uga socdo maane intaasoo talaana waa siinaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرب أدي أبا ما صنتهاي thank you حسن الشيخ وعن كلنا وجوريو قفل بنا ورئيسنا هنا قفل بنا رأيي سوى سوق بنينا مركب معارضك وحبوا مهلية وحبوا صحة وين والسلام هنا السلام عليكم ورحمة الله